meesha wax kaa soo gelayaan ha dhihin meesha xumeedan ka shaqaynay waxoogaagii xumaayan qaadanay waxoogaagii mataqaanaa afkaaga wax wanaag ka sheeg ilaahay u mahad celi kulu min risqi ta labaad haddaa saa samaysid xisaabi fiiri qor maalinkaad nidaamkaas qaadatid waxaad arki doontaa isbeddel weyn oo ku yimaaday maalkaaga asbaabu namaa almaala la yidhaahdaa qofkii ku waana diintee nooga timid بسم الله الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام على إمام كل شاكر وحامد وعلى آله وكل عابد دينتنا وناكسن معان oo ka kooban iimaanka oon dhowr mar ka hadalnay akhlaaqda oo muhiim ah iyadana oon ka hadalnay marmar kadalika alcibaadaat oo iyadana ugu dambeysay wixii soo degay ahaa maanta kelmaddeena jimcaha majliskeenna addooxa waxaan kaga hadlaynaa asbaabta keenta inuu qofku u barakoobo risqigiisa ama maalkiisu u barakoobo asbaabta keenta oo diintu ay ka hadashay midda ugu horeyso ee asbaabtaas kow ka ah waxa waaye inuu qofku meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu risqi ka siiyey inuu ilaahay ugu mahad celiyo haddiiba aad meesha ilaahay risqiga kaa siinayo oo maalka ilaahay kaa soo geliyey aadanba ilaahay ugu mahad celinaynin hadde barakadii baa ka baxayso waxaa laga yaabaa qofku inuu meel ka shaqeeyo ilaahay risqi ku siiyo laakiin uu ka xun yahay wuxuu leenayo meeshaan xunaan ka shaqeeyaa shaqadii xumeed baan ka imaaday meeshaan xunaan joogaa ama intuu joogo wuxuu ku joogaa isaga oo ma aragtay aan raalli ka ahayn meeshuu ka shaqeynayo sidaa darteed wax badan hadduu ka helo xataa ama risqi ha ahaado ama ha ahaado tijaaro ha ahaato ama ha ahaato maxay ahaato wadiifo ha ahaato ama ha ahaato business ha ahaato kuma raali aha wuuna ka shaqaynayaa sidaa darteed barakadii baa ka baxayso hadduu malaayiin ka helo baraka ma leh laakiin marka uu qofku ilaahay ugu mahad celiyo meeshuu jooga ama waddanka uu joogaba waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo waddankaas yurubuu joogaa ama maraykankuu joogaa ilaahay baa risqi ka siinayo caruurtiisuu ka biilanayaa dadkiisuu wax ka siinayaa masaajidaduu wax kaga qayb galaya haddana maca daalika wuxuu ku leeyahy waddan gaalaan joogaa oo dhib badan oo waxba wixii baraka ma yeelanayo horta bal marka hore maraykanna kuma siin lacagta yurubna kuma siin lacagta businesskaagana kuma siin lacagta xooggaagana kuma siin lacagta ilaahay baa ku siiy alrisqu min allah ilahay wuxuu leeyahy huwa aladii jacala lakum alarda daluulan ilaahay wuxuu yidhi waa kii dhulka idinka dhigay mid la sahlay oo la diyaariyey sidii wax uga soo bixi lahaayeen dhulkaa la yidhi lama dhihin soomaaliya lama dhihin ama khaliijka lama dhihin carab lama dhihin maraykanaa ka mida ingiriisaa ka mida yurubaa ka mida carabaa ka mida soomaaliya ka meel alla meesha ilaahay subxana wa tacaala uu dhulka kaaga dhigay daluul oo wax kaaga soo baxayaan kaaga soo noqonayaan xagga allay ka ahaatay waa inaad ilaah ugu mahad celisaa famshuu fii manaakibihaa ku socdu yidhi ilaahay darafyaalkeeda iyo dhinacyadeeda wa kuluu min risqihi risqiga ilaahayna cuna horta waxaa ogaataa meesha risqigu kaa soo galayo dukaankaaga ma aha waddankaa joogtid ma aha shaqadaa haysid ma aha baasaboorkaaga ma aha waa ilaahay jala jalaaluhu maraykan ha ahaado yurub ha ahaado carab ha ahaado soomaaliya ha ahaado baadiye ha ahaado magaalo ha ahaado horta ilaahay u mahad celi ilaah wax ku siinaya risqiga ilaah ku siiy fa asbaabta dadka xirmaanka ku rida waxaa ka mid ah inay u nisbeeyaan meesha badhaan waddankaanaan joogaa boqolaal kunuu ka helayaa markana maraykanka ama ingiriiska ama yurub ama mataqaanaa soomaaliya haddana wuxuu leeyahay meel xunaan joognaa meel dhibaato badan aan joognaa meeshaanaan maaragtay kuma raali ah sidaa darteed barakadii baa laga qaaday xataa wax badan hadduu helo kow horta marka ugu horeyso masdarka ilaahay risqiga kaa siinayo ilaahay ugu mahad celi alxamdu lilah ilaahay meeshaan wax iga sii ilaahay meeshaan risqi iga sii waddankaana ilaahay ii barakeey gaalo iyadoo tahay ayaa ilaah haddana aniga wax iga siiya iyadoo mataqaana carab ay tahay ayaa ilaah wax iga siiya soomaaliya iyadoo dadku ay wax la'yiin baa ilaah wax iga siiya haakadaa ilaahay horta marka hore kow asbaabta namaa risqi waxa waaye anaga horta nakfur بالرازق isma ogid laakiin gudahaad ka necab tahay sidaa darteed barakadii baa ka baxayso sidaa darteed faa'iido ma leh horta kow ilaah ku mahad celi alxamdu lilaahi meeshaan wax iga sii kow
meesha wax kaa soo gelayaan ha dhihin meesha xumeedan ka shaqaynay waxoogaagii xumaayaan qaadanay waxoogaagii mataqaanaa afkaaga wax wanaag ka sheeg ilaahay u mahad celi kulu min risqi ta labaad waxaa waaye markaad ilaahay u mahad celisid ood ilaahay subxaana wa tacaala uu ku barakeynaya wixii ku soo gala ee ilaahay ku siiyey waa ghaniime ilaahay ku siiyey ilaahay ugu mahad celi meesha ku mahad celi wixii ku soo galana ku mahad celi marka waxaaga ilaahay gacanta kaa soo geliyo ha fikirin xagga iyo xagga ka fikirin ilaahay oo mahad adaa iskale bishaan raatibkii baa ii yimid bishaan waa isiisay maxay eeto xisaabkii baa la sameeyey dukaankii waxoogaagii kuu yimid baad heshay horta waxaas soo galay horta ilahay ugu mahad celi axmid allaha cinda tajadud الnicma nicmada markay kugu soo cusboonaato gacanta ay kaa soo gasho horta ilahay ku mahdi meesha risqiga aad ka helaysana ilahay ku mahdi horta labo ta saddexaad wixii ilaahay ku soo geliyey waa ghaniime ghaniima maxaa la yidhahdaa ghaniima waxaa la yidhahdaa kullu maalin aw kullu faa'idatin faa'iido walba oo kuu soo xasishay biduuni tacab biduuni dhib waxoogaa yaraad bil soo shaqaysay lacagaa kuu timid waxoogaa yaraad business samaysay waxbaa kaa soo galay waxoogaa yaraad mataqaanaa aad waxbaa ilaahay ku siiyey ghaniima la yidhahdaa ghaniima sharciyana waxaa la yidhahdaa maalka laga helo dagaalka muslimiinta laakiin ghaniima fi luga alcarabiya waxaa la wax walba oo ku soo gala biduuni tacab kuugu yimaada waxa ilaahay risqigiisaa ka mid ah waa tuu lahaa imru'ul qays waqtigaas diinta ma soo deginba wuxuu yidhi waqad radiitu min alghaniimati biliyaabi waxaan kaga raali noqday wuxuu yidhi tatawaftu fi laafaaqi xataa radiitu min alghaniimati biliyaabi dhulkao dhan aan soo wareeguu yidhi markaasaa ghaniimadan hore waxay noqotay anoo nabada inaan soo laabtay waxba maana soo helinu yidhi laakiin ghaniimada weyn waaba salaamada walaaga waxaa mithaal waxaa looga dhigaa qofka markuu intuu juhdi galo waxba ka soo waayo waxay dhahaan radiya bilghaniimati biliyaab inuu nabad ku soo laabtaaba ghaniimo weyn ah laftirkeedu waa ghaniimo weyn oo wax weyn ah marka ghaniimo waxaa la yidhahdaa wax walba ku soo gala marka ilaahay wuxuu leeyahy waclamuu ogaada annamaa ghanimtum wixii aad heshaan ama ha ahaato wax idinku soo gala biduuni tacab ama ha ahaado ghaniimadii xarbiga ha ahaatee ghaniimo ilaahay min shayin shay walba xarbi keliya maaha shay walba raatibka bishaa ka mid ah businesskaagaa ka mid ah wax walba fa anna lilaahi khumusa horta waxaa samaysaa wuxuu ilaahay ku siiyey 5 meel ilaahay iyo sadaqo ugu talagal waxaad arki doontaa baraka aanan la soo koobin 1,000 riyaal baa ku soo galay $1 baa ku soo galay 200 horta bal qaraabada sadaqada meel iska dhig zakada maaha zakadu waa gaar markii sanad soo wareego shuruuday leedahay laakiin ghaniimada markay kuu timaado oo bishii aad waxaaga heshid waxaad isku daydaa inaad boqolkiiba 5 qayb markii loo qaybiyo meel khumus waxaa la yidhahdaa 5 qayb markii loo qaybiyo qayb 1,200 aad ka saaraysaa 10,000 waxaad ka saaraysaa 2,000 ood ugu talagelaysid lillaah qaraabadaad siinaysaa reerkaagaad siinaysaa fuqaradaad siinaysaa sadaqaad ka baxsanaysaa bishaas dadka kula soo hadla been ma sheegaysid dadka qaar lala soo hadlaya xamara lagala soo meeshaas waxbaan u baahanay ama soomaaliya meelay ahaataba markaasuu wuxuu leeyahay waxba ma haayo ilaahayna waxbuu siiyey ghaniima ilaahay siiyey marka haddaa saa samaysid xisaabi fiiri qor maalinkaad nidaamkaas qaadatid waxaad arki doontaa isbeddel weyn oo ku yimaaday maalkaaga asbaabu namaa almaala la yidhaahdaa qofkii waana diintii nooga timid qur-aankii nooga timid wax weyn baa qofka iska bedelaya diintu maaha bas inaad la cibaadaysto diintu wax walba inoo tartiibis ilahi waxaan ka rajeynaa ilaahi subxaana watacaala kuwa diinta dhan walbaba ka qaata وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد ما أنت مال جمعنا وياه صلي نبي هلا بدي صلوات الله وسلامه عليه أسباب الرزق وسجن كمديه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه